warar ka soo baxaya dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya in qaraxyo loo kala garan waayay shil ama weerar ay ka dhaceen dekedda magaalada Fujairah ee dalka Imaaraadka Carabta. Xukuuman oo laga helayo ayaa sheegaya inay gubanayaan qaar ka mid ah amaha shidaalka ee dekeddaas yaalay, sida ay dad goobjoogayaal ah sheegeen. Dayuuradaha dagaalka ee Faransiiska iyo Mareykanka ayaa dul heehaabanaya dekedda agagaarkeeda xilligii qaraxyadu dhaceen. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in qaraxyadu dhaceen intii u dhaxaysay 4 ilaa 7 subaxnimo ee saacadda maxalliga ah. Ilaa hadda lama oga qaraxyadani inay ahaayeen weerar ama shil ka dhashay dekedda hamaha yaalay. Sidoo kalena lama oga khasaaraha ka soo gaadhay cid. Dowladda Imaaraadka ayaa si weyn isugu dayeysa inay xakameyso xogta iyo wararka ku saabsan qaraxyada ka dhacay goobtaas. Wargordhow ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka ayaa si weyn u beenisay qaraxyadan, waxaanay dowladda Imaaraadka Carabtu sheegtay in wararka ay faafiyeen kooxda Ikhwaan Muslimiin iyo dalalka Iiraan iyo Turkiga. Wixii ka soo kordha kala soco alool.com.